isweydiinta aniga gabadhana dhex martay si fiican u dhegaysta waan masayrsanahay oo ninkii baa ila guursaday bay tiri laa baas waxaan ku idhi ninkaaga magicii waxay tidhi hebel baa la yidhaahdaa hebel inaad guursanayso goormo ayaad ogaatay waxay tidhi markay sheekana dhex martay oo isku soo dhowaanay oo haddee guur dhacay oo meher dhacay un baan ogaaday inaan guursanayo maalan ama aan guursaday waxaan ku idhi miskiin oo horay ooma aadan ogeynba miyaa aslan ninka hebel la yidhaahdo inuu horay kugu qoraa oo laxul maxfuudka horay maadan u arkin ma og tahay yacni intaan samaawaadka iyo dhulalkaba la abuurin intaas oo sano ka hor ilaahay inuu kuu qadaray oo kuu qoray oo looxul maxfuudka ku qoray ninka hebel la yidhaahdo inuu adigana kuu qoray ayadana asaga uu alla kugu qoray tabaaraka jala wacala inaad guursan doonto su-aashu waxay tahay markii adiga lagugu qorayey in keligaa lagugu qoray iyo inay gabarh kale kugu ag qorayd ma ii sugi kartaa si fiican u dhegeysa xiwaarka waxaan arrintaa kula hadlayaa gabadh walba oo arrintaa ay ku timid inay halkaa ka fiiriso iskuna qanciso si wanaagsanna erayadaa u dhuuxdo 3 erey bayna ka koobnaan doontaa ka koobaad waxaa weeye ma ii caddayn kartaa ninkan ku qaba ee laguu qoray intaas oo sano ka hor intaan samaawaadka iyo dhulka la abuurin inaad lawxul maxfuudka keligaa ku qorayd iyo inay gabarh kale kugula ag qorayd laakiin muddada iyo taariikhdu un ay kala hormartay ma ii caddayn kartaa maya ma caddayn kartid waayo ma dhihi kartid haybkaan ogahay gaalnimo weeye waa shirki weeye inaad dhahdo hayb baan ogahay oo lawxul maxfuudka waxa ku qoran baan ogahay waa hayb haybkana alle keligii baa garan xataa ambiyadii baan loo sheegin ilaa intuu alla doono inuu oga sheego mooyeen tabaaraka jala wacala walow kuntu aclamu اlghayba laاstakhartu min alkhayri wmaa masaniya الsuu in ana ila nadiiru wabashiiru liqowmin yu'minuun nabigeena calayh salat slaam baa saas leh saa ku dheh baa la yidhi suurat اlacraaf anigu haybka ma ogi idan ma dhihi kartid hayb baan ogahayo anigaa warka idiin hayo oo waxaan hayaa qoraal iyo cadayn ii caddaynaysa inaan aniga keligay ku qoraa idan arrintaa ma jirto midda labaad haddayna taa jira aan ku weydiiyo ma waxaad leedahay waan ogahay inay ku qorayd oo waanba arkaa inuu guursaday ma waxaad i leedahay in lagu qoro baa cadaalad xumo ahayd oo ilaahay baa dulmi subxaanaka yaa rab oo ilaahay baa dulmi iyo cadaalad xumo u tiirinaysaa ina allaha xarama subxaanahu wa tacaala calaa nafsihi dulm ilaahay naftiisa dulmi waa ka xarimay yaa cibaadii inii xaramtu dulma calaa nafsi aniga naftayda dulmi waan ka xarimay ilaahay wuxuu leeyahy tabaaraka wa tacaala naftiinana ha isdulmiina idinku ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu aayado aad u fara badan noogu sheegayaa calaamadan ama astaantan dulmiga inuu naftiisa ka nasahay dadku ayagaa isdulmiya laakiin ilaahay naftiisa ma dulmiyo dadnana ma dulmiyo tabaaraka jala wacala walaakina annaasa anfusahum yadlimuun in allaha laa yadlimu nnaasa shaya ma ku dhiiran kartaa si fiican ii dhegeyso waa aniga hore ku idhi adaan kula hadlayaaye waa aniga ku idhi si wanaagsan qalbigaaga iisoo qaabili wuxuu reerku kaaga dumayaan rabaa maanta inaan hortaada dhigo inaad reer baad duminaysaaye waa lila guursaday baad leedahay shaygaad reerka ku duminayso yaan doonayaa inaan hortaada dhigo qodobka hore ma xustaa qodobka hore waxaan ku weydiiyey ma soo aqriday laxul maxfuudka inaad keligaa ku taalay oo ninkaa inuu ku guursan doono aad keligaa ahayd iyo in lagugu ag qoran yahay taasi waa adigii iyidhi maya laxul maxfuudka ma soo aqrisanin mana soo taalacanin la imana sheegin mana garanayo waan garanaya haddaan ku dhahna waa kufri iyo gaalnimo islaamka aan kaga baxayo taa meel baan isku soo dhignay anna waan kugu waafaqsanahay arrinku inuu noocaa yahay laakiin su-aasha labaadaan ku weydiiyey waxay ahayd haddaad ogolaatay inay kugu ag qoraydoo wayba dhacdo waaba lagula guursaday ma waxaad leedahay ilaahay baa dulmi sameeyey oo in lagu ag qoro ma ahayn ma saasaad leedahay taana xaashaa wa kalla
waa arrin khatara oo ayadana dhib weyn uu kaa soo gaarayo kufri iyo gaalnimana keenaysa inaad dhahdo in lagu aqoro ma ahayn acuudu billah qodobkaana waa qodobka labaad aslan waa isku afgarannay alle inuu subxaana wa tacaala wax kasta uu samaynayo inuu xigmad yahay oo hadda su-aashaa su-aal kaleo aad u fahmi kartaanba kuu sheegi adi ninkan in laguu qoray maxaad ku aqbashay oo gabadha loo qori waayey waa cajiib adiga in laguu qoray ogolaatay waa zawjkaygii baad leedahay oo waad jeceshahay horena waxba omaadan ogeyn in gabadhan kale loo qorayna dagaal baad ka xigtaa reerkana waa kaaga dumayaa su-aashaan ku weydiinayo oo si caqli aan kuu weydiinayo oo si maskaxa aan kuu weydiinayo oo si mas-uuliyada aan kuu weydiinayo oo inaad ka fikirta aan doonayo qalbigaagana aad gashto aan doonayo xamaasad iyo inaad xagga dhigtana aan doonayo si degan oo fikir leh inaad ku fiirisa aan doonaya waxay tahay maxaad naftaada ninkan oogu ogolaatay in laguu qoray ood oogu faraxsan tahay oo aad gabadhaasi inaan loo qorin wax u eg aad oga doodaysa aad leedahay may yaa imaa inaad furto ayada yaa imaa aniga waa inaad i furtaa away allihii jideeyey tabaaraka wa tacaala ee adiga iyo ayadaba isku kiin garab qoray ee ninkaa hebel la yidhahda idiin qoray away shaqadaasi waxaan u malaynayaa inay su-aashaa jawaabteedana aad iyo aad kugu adkaanayso qodobka saddexaad waxaan doonayaa inaan dhaho in laguu qoray garanay in la qoro ay dhacdo inayn dulmi ahayna waanu garanay allah tabaaraka jala wacala afcaashiisa iyo waxa uu samaynayo ma cid la maamusha oo la xukunta doonto ka xadafta waxay doontana ku siyaadisa miyaa jirta alle xikmadiisu miyaynan ahayn xikma baaliga oo aad u xeel dheer oo shay walba meesha ku habboon dhiga yaa kuu sheegay yaana kuu sharxay yaana kuu fahamsiiyey arrintan ayadaa in lagula guursado inay khayr ku ahayn ma laga yaabaa adiga inay khayr kuu tahay ma laga yaabaa ilmihii ku anfici lahaa adiga inay gabadhaa kale ay dhasho ma laga yaabaa ma laga yaabaa inay cuquubo ilaahiye a kaaga timaado nicmada aad haysato in ayada la siiyo bal qisadan yara kooban dhegeyso nin baa xaas qabay 4 ilmood oo weliba 4 wiil ah soomaalidu wiilal bay jeceshay carabtube 4 wiil bay u dhashay gabadhii dambe lala guursaday bay ku jeestay waayo ninkii bay wax u dhali weyday waxay tiri u fiirso alxamdulilah aniga 4 ilmood buu alla isiiyey mid waad aragtaayoo calooshaan ku sidaa mid waad aragtaayoo hortayduu socdaa mid waad aragtaayoo gadaashayduu socdaa wahaakadaa way faantay ya gabadhii way fikirtay oo way walbahaartay laakiin ilaahay xikmadiisa u fiirso ilaahay qadahiisa iyo qadarkiisa u fiirso walilaahi alxikmatu albaaliga subxaanaka yaa rab allah wuxuu qadaray subxaana wa tacaala allihii bixiyey amaanadan inuu dib u ceshado 4 wiilba ilaahay baa dib u ceshaday gabadhina ilaahay uur buu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay wuu siiyey way dhashay 4 wiil bay dhashay yaa waxaan keenay oo yaa waxaan bixiyey kadibna maxaa dhacay islaantii oo xanuunsatay oo dhul dhacday ayaa waxay u soo baahatay gabadhii iyo caruurtay dhashay wareedhe adigu arrinkan ma ogid ilaahay baana xikmaddaa garanaya tabaaraka wa tacaala aan xaggaa iyo dib kuu celiyey saxaabatu rasuulillaah sala allahu alay wasalam u fiirso gabadha la yidhahdo umu salama markuu ka dhintay abu salama ayuu nabigu u yimid sala allahu alayhi wasalam wuxuu ku yidhi ducayso oo waxaad dhahdaa ilaahayow ninkaygii iga tegiyo iga dhimayo nin ka khayr badan iigu bedel waxay tihi oo ma ninkayga nin ka khayr badan baa jira aragtidaasay qabtay gabadha ilaahayna wuxuu u qadaray inuu nebi moxamed soo doonto subxaanahu jala wacala nabiga calayhi salaatu wasalaam waxay tihi kuma guursanayo arrimo dhowr ah waxaa ka mid ahaa waan masayr badna nabigu wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ilaah baan kuu baryi inuu masayrka kaa qaado allahu akbar halkaa culammadu waxay dhaheen waxaa la garanayaa masayrku waa cudur marka ka waran qofkii cudurkii isku sii riday asagoo masayrku cudur ahaa ka waran qofka isku sii riday oo cudurro kale ku sii daray soo cudur ku sii noqon maayo reerkuna kaa dumi maayo meeqo gabdhood baa intay
masayreen oo reerkii ka duma iyagoo nin wanaagsan gabdhaha waxaan ku dhahaa wareedha gabadhay adi maxaa kaa khaldan ninkan ma jeceshahay haa keligii markuu ahaa soo kuma dhaqanaynin oo maada dhaqanaynin haa maxaa hadda soo biiray gabadh muslimada oo sidii aan hore ku soo sharaxnay sidaad adigu u qoraydba ayaa timid soo ma ahaa arsaaqadeeda ma la timid haa soo doqonnimo adiga kuuma aha ninkaad intaa taqaanay ee tababaratay oo intaasoo carruura alle kaa siiyey goortuu ugu fiicnaa ee uu hayinka noqday goortuu ugu wanaagsanaa ee aad ka adkayd waxaa la yidhi marka u horraysa ninku uu guursado qof dumara ninku 4 gees buu leh gabadhuna 1 geesba ma leh odayaasha soomaalidu saasay dhahaan waana waaqic wey mar alla markuu cunug u dhasho gabadha gees baa u soo baxa ninkana gees baa ka jaba laba markay u dhasho 2 gees bay yeelataa ninkana mid kalaa ka jaba 3 markay u dhashona 3 gees baa u soo baxa ninkana mid baa ka jaba 4 markay u dhashona 4 gees bay yeelataa ninkana waxba khalaas waa dhamaatay macnaheedu waxay ka wadaan haweenay 4 kuu dhashay wayba kaa adagtahay sooma meel laba ooma socod sooma ninka aad marka tababaratay eed 4 geesba ka jartay oo adna 4 gees ku yeelatay inay gabarh kaa qaadato soo adi xumaantaadaaba maad quruxda meesha ugu dambaysa iyo cunto meesha ugu dambaysa iyo hadal macaan meesha ugu dambaysa adoo qadarka allana raalli ku ah maad ninkaaga hoosta soo gashatid maxay kaaga qaadi gabarh kale waa risaalo anu aan gabdhaha siiyo wey waxaan u arkaa arrintaa gabdhuhu inay dib aad iyo aad ugu noqdaan marka nabigu umu salama waa u duceeyey sala allahu alayh waali wasalam ilaahina waa ka sii qaaday halkan waxaan rabaa inaan gabarh kasta oo soomaaliya ugu baraarujiyo ma doonaysaa ilaahay inuu kaa sii qaado masayrka reerka kaa duminaya ma doonaysaa hadda ilaahay bari nabigaba intuu alle u baryey umu salama yuu alla ka sii qaaday sooma sala allahu alay wasalam allah ka sii qaaday umu salama adiguna haddaad alla barido allah kaa sii qaaday waxaan gabdhaha leeyahay ilaahay ku xidhma oo ilaahay u carara oo ilaahay u sujuuda oo asaga barya oo asaga tala saarta waxaan waa baaba'ayaan waad dhimanaysaan aakhare waad ka tegaysaan ma diidani markaan saas lehay masayrka waa wax jiri kara laakiin waa inuu noqdo masayr wanaagsan dib baad ugu noqon kartaan cajaladda aan u bixiyey masayrka wanaagsan youtubekay ku jirta saacad iyo ka badan socoto masayrka wanaagsan way dhici kartaa inaad masayrto laakiin waa inuu dawaabid leeyahay waa inuu shuruud leeyahay waa inaada xadgudub samaynin bal hooyadan caaisha oo masayrtay aan tusaale u qaadano ayada iyo rasuulka isla socday maalin calayhi salaatu wasalaam waxay ku soo baxeen meel tog ah ama webi ah ama faraq ah sida loo yaqaano way kala weynaan karaane waxay tiri rasuulka ilaahayow calayhi salatu wasalaam adigoo geel awrtaadii wato oo socoto ah haddii aad ku soo baxdo toggan oo kale ama webigan oo kale oo dhinacanna uu barwaaqo yahay dhinacanna abaar yahay adiga iyo gaadiidkaad wadataba xaggee degi lahaydeen wuxuu ku yidhi caqlan dee dhinaca geedaha iyo barwaaqadaanu degi lahayn iyo hooska waxay tidhi haddaba islaan carbeedoo ilka dhacsatay oo waa hore dhimatay oo gabarh yar ilaahay kuugu bedelay maxaad horta u sheegtaa khadiijay u socotaa marka hooyadan caaisha halkaasay la yar gaadhay nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuu qanciyo wuxuu yidhi waxaa weeyaan khadiija gabadha la yidhaahdo u fiirso diinta igu garab istaagtay markay i beeniyeen bay i rumaysay intaasoo carruuray ii dhashay wuxuu nabigu bilaabay inuu ammaano khadiija allahu akbar inuu ammaano xataa intuu neef adhi aqalo ayuu dhihi jiray saaxiibada khadiijaha loo geeyo hataa caaisha iyo khadiijo isma soo gaadhin ogaada tu kala qaata hooyadan caaisho martibaa u timid haweenkii nabiga sala allahu alayh wasalam mid kamidaa maqashay in caaisho marti culus u joogto waxay damcda inay raashin ku kaalmayso wiil bay u soo dhiibtay addoon mar alla markii raashinkii weelkii iyo xeeradii iyo wixii ku jiray markii la keenay hooyadan caaisho way masayrtay masayr macnaheedu u yahay ma anaa martidayda ku fillaanla ilaa ay gabarh kaloo layla qaba ay cunto ii soo dhiibto
qool iyo qoriba intay soo qaatay ee bash ku kala siisay nabiga marti baa u fadhida calayhi salatu wasalaam nabigu intuu gabadhii la hadlay caaishayd buu ku yidhi raashinkiina waa inaad raashin la eg samaysaa weelka aad jabisayna waa inaad u guddaa dadkii martidaana wuxuu ku yidhi hooyadiin way masayrtay masayrku inaha inuu dhaafo laakiin masayrka gaadhaya maanta waxaan aragnay ee guryaha la gubayo ee dadka la gubayo ee maxaa la yidhahdaa baasiinka loo karkarinayo ee saliidda loo karkarinayo ee baabuurtii iyo mataqaanaa xoolihii la jejabinayo waxaas masayr ma aha waa dhulmi iska ilaaliya gabdhow dhulmi baad gelaysa adu laakiin waan masayrsanahay baad leedahay waxaan isleeyahay kelimaadka inay aad iyo aad muhiim u yihiin lamana soo koobi karo runtii waxyaabaha reeraha dumiya walacalla kelimadaas inay noqoto kelimada noogu dambaysa reeraheenna yaan la duminin biidn illahi tabaaraka wa tacaala qadarka ilaahayna ku kalsoonaada biidn illahi tabaaraka wa tacaala ilaahayna isu dhiiba subxaanahu jala wacala allah waxaan weydiisanaya subxaanahu wa tacaala inuu reeraheenna noo wanaajiyo kelimada ugu dambaysa ragga waxaan leeyahay xikmad isticmaala oo ninka doonaya inuu gabadh kale gabadha la guursado xaaska la guurso war qaab xikmad la u guurso qaab xikmad la u guurso qaabka ay ragga qaarkood u guursadaan haddee qaab ka qayb qaadanaya ma aha damiirka qofkaagan ilaali qofkan waa qofkaad nolosha isla soo qaadateen sharafteeda ilaali qiimaheeda ilaali yacni ka dhaadhici oo la fadhiiso ka dhaadhici oo qanci oo si wanaagsan ogu sheeg biidn illahi tabaaraka wa tacaala gabadhu way ku jeceshahay way qaadanaysaa haweenka waxay u baahan yihiin hadal macaan iyo qaab macaan iyo ficil macaan iyo muusood macaan waa dhalo iyo quruurad intaasay u baahan yihiin wax kale ooma baahno marka xikmadda ha la hagaajiyo biidn illahi tabaaraka wa tacaala markaad guursanaysana ha noqoto ujeeddo iyo hadaf inaad u guursanayso yayna noqonin wax reerkaagana ku dumo biidn illahi tabaaraka wa tacaala xikmad xumana kaaga dhacda yayna noqonin gabdhahana waxaan leeyahay arrinkaa hadduu dhaco qadaha iyo qadarka isu dhiiba kuna kalsoonaada allah tabaaraka wa tacaala aad baan ugu faraxsanahay mar labaad inaan isu imaanay maxaa la yidhahdaa magaaladan toronto wadanka canada allah waxaan weydiisanaya subxaana wa tacaala inuu marar kale uu noo qadaro inaan isu imaano intaanu kaga kulmayno xalaqo kale oon tan ahayn waxaan idinkaga tegayaa astawdicukum allah wasalaam